السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحران جانالك مركلة سود وواضح أدي هذا ومهدسنتهين مقال كان وحن ربا إنا ندكول وذاقو بكتيريا قطرة أو لغا هلي مid ka mid ah hamburgerka laga cuno maqaayadaha McDonald's-ka oo cuntada fast food-ka oo guud ahaan Mareykanka ku yaala ilaa iyo 50 case ayaa laga helay dad cunay cuntadaasi hal qofna waa uu dhintay haddaba baaritaanka hay'adaha kala duwan ee Mareykanka CDC-da FDA-da iyo waliba USDA-da ay ku wadaan maxay yihiin sidoo kalena gobolada laga helay maxay yihiin oo laga joojiyay in cuntadaasi McDonald's-kaasi laga cuno ayaan rabaa inaan idinla wadaago iyadoo 12 maalmood ay ka harsan tahay doorashada madaxtinimada ee Mareykanka ayaa generaal horey ula shaqeyn jiray Trump waxa uu ku eedeeyay in uu yahay faashiste isla markaana uu amaanay dhowr jeer ninkii Hitler ahaa arintaasi oo Kamala Harris ay Trump si aad ah ugu cambaareysay Trumpna uu iska fogeeyay sidoo kalena haddii doorashada madaxtinimada marka ay dhacdo codadka electoral college ka la isla ekaado madaxweynaha ayaa dooranaya arintaasina waxa rabaa sidoo kale inaan idin la wadaago marka hore aan ku hormaro bacteria qatara oo la yiraahdo E. coli ayaa waxa laga helay qaar kamid ah maqaayadaha McDonald's-ka ee ku yaala gobolada Mareykanka gaar ahaan mid kamid ah hamburgerada ay dadka siiyaan oo la yiraahdo quarter pounder-ka la yiraahdo arintaasi waxay sabtay in 50 qof ay cuntadaasi bacteria ay ka qaadaan ilaa iyo 10 qof oo kamid ah isbitaal la dhigo oo xitaa hal qof oo ilmaha uu ku jiro hal qofna waa uu ku dhintay dadkaasi da'doodu waxay u dhaxaysaa 13 ilaa 88 waa dadka bacteriadaasi laga helay oo McDonald's-ka cuntada ka cunay taragleyda guud ahaan gobolada Mareykanka isaga goosha haddii aad goboladan mid kamid ah aad McDonald's-kiisa aad ka cuntay cunto ilaa intii u dhaxaysay September dhamaadkeedii ilaa iyo bartamihii bishan oo aad xanuunsatay ama wali aad xanuunsan tahay si degdeg ah dhakhtar ula xiriir hay'adda CDC-da oo xakamaysa faafitaanka cudurrada Mareykanka cudurrada ku faafa dadka iyo hay'adda sidoo kalena USDA-da oo hay'adda dhinaca beeraha u qaabilsan dowladda Mareykanka iyo FDA-da oo iyaduna kontroolka cuntada Mareykanka soo galaysa qaabilsan dhamaantoodba baaritaan ay ku wadaan kiisaskan iyo waxyaabaha ay ka dhasheen waxa loo maleynayaa in ay ka dhasheen basal ciriin ah oo la kor saaro McDonald's-kaasi gaar ahaan quarter pounder-ka la yiraahdo hamburgerka la yiraahdo in basasaasha ciriinta ee la jarjaray bacteriadan E. coli-da ay ka timid marka waxa sidoo kale la baarayaa hilibka lo'da ee McDonald's-kaasi ama hamburgerkaasi ku jiray inta badan gobolka Colorado ayaa ugu badan gaar ahaan degmada la yiraahdo Mesa County ku dhawaad 20 kiis ayaa laga helay waana degmadaasi meesha halka qof oo qof weyn ahaa uu ugu geeriyooday marka waxa bacteriadan E. coli hadda McDonald's ku yaala Wyoming, Utah, Colorado iyo Kansas gabi ahaanba liiska cuntada la dalban karo waa laga saaray McDonald's halkaasi ku yaala maxaa yeelay baaritaan ayaa socda iyadoo sidoo kalena hilibka lo'da iyo basashaasha ciriinta ee la jarjaray labaduba baaritaan lagu sameynayo oo loo maleynayo bacteriyadu inay halkaasi ka timid sidoo kale gobolada kale oo 10 ah oo kiisaskan laga helay waxay kala yihiin haddii aan idin dul maro Colorado, Kansas, Utah, Wyoming, Idaho, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, Oklahoma sidoo kale Oregon iyo Wisconsin-na waa laga soo tabinaya marka baaritaanku waa uu socdaa hay'adda CDC-da waxay leedahay waxa laga yaabaa inay kiisasku ay kordhaan E. coli marka bacteriadan waxa laga qaadaa haddii aad liqdo ama aad cunto biyo ama cunto ee bacteriadaas ay ku jirto sidoo kale nadaafad darrada dhinaca musqushana waa laga qaadaa calaamadaheeda waxa kamid ah calool xanuun aad u daran shuban mararka qaar uu dhiig la socdo oo ilaa 3 maalmood soconayo aan kala joogsanayn qandho kor u dhaafaysa ilaa 102 iyo sidoo kale matag marka waxa calaamadaheedana isku arki kartaa marka aad cuntadaasi ama biyahaasi aad cabto 3 ilaa 4 maalmood gudahood ayaad sidoo kale aad isku arki kartaa waxa sidoo kale la leeyahay mararka qaar qofku isagoon isbitaal tagin ama aan la daaweynin ayuu toddobaad gudihiis ku bogsan karaa laakiin dadka da'da ah dadka difaaca jirkooda hooseeya caruurta 5 sano ka yar iyo waa u daran yahay marka waxa bacteriadan la ogaaday 27kii bishii September ee dhamaatay ilaa iyo October
11keeda marka bakteeriyadaasi ayaa laga helay McDonald's maqaayadahaasi ku yaala iyadoo sidoo kalena hadda si weyn looga digayo inay kordhi karto marka calaamadaha halista oo ay keeni karto waxaa kamid ah qofku kili xanuun aad u daran oo isbitaal la dhigo uu u baahnaan karo dadka da'da ayay u daran tahay carruurta da'doodu 5 sano ay ka hooseyso marka haddii aad taraagle tahay isla markaana goboladaasi aad tagtay McDonald's waxaan ognahay inta badan taraagleedu cunto ma qaataan meeshii ay McDonald's amaba KFC ay ku arkaan ay ku leexdaan laakiin hadda waa McDonald's oo kaliya waxyaabaha bakteeriyadan ama maqaayadaha bakteeriyadan laga helay fast foodka marka haddii aad calaamadahaas isku aragtay ilaa iyo bishii hore dhamaadkeedii ilaa iyo bishan intay socoto McDonald's ku yaala goboladaas in aan ku sheegay inaad cunto ka cuntay waxaad u baahan tahay inaad dhakhtar la xiriirto waxaa bilaabatay sidoo kale hadda in la dacweeyo McDonald's maadaama hal qof uu dhintay dad kalena isbitaal ay u galeen iyadoo sidoo kalena ninka madaxda ka McDonald's uu yiri waxaan ku dadaalaynaa sidii aan dadka cuntada aan siinayna aan u hubin lahayn wixii hadda ka dambeeya laakiin baaritaankaasi ayaa ku socda intaas haddii aan ka gudbo McDonald's iyo bakteeriyada laga helay doorashada Mareykanka 12 maalmood oo kaliya ayaa hadda ka harsan shalay waxaa soo baxday generaal la yiraahdo John Kelly oo afar xidiglaha shaqada ka fariistay laakiin Trump xilligii uu madaxweynaha soo noqday madaxa shaqaalaha kii ugu muddada dheeraa ee Trump la soo shaqeeyay Trump waxaan ognahay in dad badan shaqada uu ka ceerin jiray xilligii madaxweynaha qofkii ka hor yimaado hadalkiisa maqli waayay shaqada uu ka ceerin jiray marka John Kelly waxa uu ahaa madaxii shaqaalaha ugu muddada dheeraa ee Trump la soo shaqeeyay markii Trump toddobaadkii hore uu ka hadlay waxa uu ugu yeeray enemy within oo ah in cadowga dibadda Mareykanka jooga waxa ka daran cadowga nagu dhex jiro xitaa magacaabay Nancy Pelosi iyo Adam Schiff oo labaduba dimuqraadi ah isla markaana uu sheegay in laga yaabo xitaa ciidamada ilaalada qaranka iyo militariga inuu adeegsado ayaa waxa uu yiri waxa igu qasabtay inaan wareysigan bixiyo General John Kelly New York Times ayuu siiyay waxa uu ahaa wareysi maqal ah oo qadka telefoonka uu ku bixiyay marka waxa uu yiri dhowr jeer waxa aan hubaa in Trump uu soo galayo liiska faashistaha inuu soo galayo sida darteed waxa uu sheegay in dhowr jeer uu maqlay Trump oo dhahaya wax wanaagsan ka sheegaya ama amaanaya Hitler waa naqaanaa wixii uu sameeyay sidoo kale waxa uu sheegay in uu dhowr jeer ka maqlay isagoo dhahaya waxaan u baahanahay generaaladii sidii Hitler oo kale kuwaas waxa uu yiri daacad ayay u ahaayeen amaradiisana waa ay qaadan jireen marka waxa uu rabaa Trump militariga Mareykanka in ay amarkiisa waa ay qaataan laakiin haddii wax qaldan ama sharciga jabiya ay yiraahdaan inay u hoggaansamaan marka arintaasina suuragal ma ka ahan Mareykanka marka isla markiiba markii arintaasi ay soo baxday Kamala Harris shalay shir jaraa'id ay qabatay waxa ay tiri Trump dadkii la soo shaqeeyay oo Oval Office-ka Situation Room-ka kala soo shaqeeyay ayaa hadda waxa ay noo sheegayaan wajigiisa dhabta ah oo ah in uu faashista yahay isla markaana generaalada Mareykanka uu rabo sidii Hitler oo kale inay amarkiisa qaataan in uu amaanay dhowr jeer Hitler uu yiri wax wanaagsan ayuu sameeyay oo Hitler uu leeyahay wax wanaagsan ayuu sameeyay marka waxa ay tiri enemy within waxa uu la wadaa in dadka isaga siyaasad ahaan ka soo horjeeda garsoorayaasha wariyaasha iyo mas'uuliyiinta doorashadaba in uu rabo in uu xiro hadii uu wadanka madaxweyne ka noqdo marka waxay tiri Trump waa qatar oo dimuqraadiyadda Mareykanka ayuu qatar ku yahay hadii uu mar kale madaxweyne ka noqdo wadankan Mareykanka sidoo kalena xalay mar ay town hall CNN-ku ay qabteen ka hadlaysay oo dadku su'aalo ay weydiinayeen Anderson Cooper oo xiriirinayay waxa uu weydiiyay ma aaminsan tahay Trump inuu faashista yahay ayay tiri oo aan aaminsanahay in Trump uu faashista yahay doorashada Mareykanka waxaan hore idin ugu sharaxay in popular vote-ka codka shacabku ay dhiibtaan aan lagu kala guuleysan oo electoral college lagu kala guuleysto haddaba scenario waxa dhici karta in electoral college-ka Trump iyo waliba Kamala Harris ay 269 iyo 269 ay helaan waa 538 marka la isku daro haddaba haddii barbardhac ay noqdaan maxaa la sameynaya arintaasi waxa ay dhacaysaa in aqalka Congress-ka Senate-ka iyo waliba aqalka wakiiladu ay kala dooran doonaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka laakiin waa Congress-ka isaguna la dooran doono oo marka doorashadu ay dhacdo aqalka wakiilada waxaan ognahay 2 sano kasta waa la doortaa 435 xubnood Senate-kuna 6 sano oo kasta ayaa la doortaa laakiin iyaga hal mar lama wada doorto oo qayb ayaa loo kala doortaa marka aqlabiyadda haddii aqalka wakiilada Republicaanku ay yeeshaan
waxaa muuqata inay Trump dooranayaan haddii dimuqraadiyiintu ay aqlabiyadda la wareegaanna waxay dooranayaan Kamala Harris hadda waxa aqlabiyadda 221 leh dimuqraadiyiinta 214 waxa aqlabiyadda ku haya xisbiga Republicanka afar xubnood ayaa u dhaxaysa marka haddii dimuqraadiyiintu afar kursi oo dheeraada ay helaan doorashada November dhacaysa oo aqalka wakiilada aqlabiyadiisa ay la wareegaan la isla sinaado electoral college oo 269 noqdo dimuqraadiyiintu Kamala Harris ayay dooranayaan aqalka wakiilada aqlabiyadiisu ayaa madaxweynaha dooranaya madaxweyne ku xigeenkana sanadka ayaa dooranaya marka sanadka aqlabiyadiisu haddii Republicanku ay la wareegaan dimuqraadiyiintuna ay la wareegaan aqalka wakiilada waxa laga yaabaa inay noo yimaadaan madaxweyne dimuqraadi iyo madaxweyne ku xigeen Republicana haddii sidoo kalena dhinaca kale ay Republicanku la wareegaan aqalka wakiilada oo Trump ay doortaan sanadkana hadda hal xubnood ay ku hogaaminayaan dimuqraadiyiinta oo 51 ah iyaguna madaxweyne ku xigeen oo doortaan madaxweyne Republicana iyo madaxweyne ku xigeen dimuqraadi miya ay imaan doona marka arintaasina sidaas waa ay dhici kartaa oo waa ay noqon kartaa marka scenario-daas kalena waxaan rabay inaan idila socodsiiyo si aad u ogaataan haddii electoral college la isla ekaado weli ma aysan dhicin laakiin waa macquul hadda doorashadu sida ay isugu dhowdahay in ay dhici karto marka la eego gobolada in codadkoodu ay isbadbedelaan sida mid waliba uu u hogaaminayo qaybo kamid ah goboladaas waan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordha aad iyo aad ugu mahadsantihiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkan cilmi waaro idinla sida iyo nabadgelyo